أقل صومالي هل كان وهيجا أم كنا لهاي عجيب ده بالمرف صوفير باديها تجابي يعني إن شاء الله هذا واجا كوش اللي يسجل أنت كومفيري أنت إلا إيش هذا ماشي غبط واسكب بنانت مال الله ماشي شهر تسلي كريه كوبا شال من أرد جيت هو سرقل من هذا أقل كل شيء هرقل بسم الله الرحمن الرحيم هل كاني وديجانك عارية نوي عارية نوي waxaan ka maqalnaa dhigta laakiin wali ma imaadey waa maya deegaankan waa deegaanka caari nooy maanta ayaan maaragtay ku nimaanay safar waxaana nagu soo dhabeeyey saaxiibkeena master cali bushkuleeti haddaba xaqiiqatan halkaani waa deegaan furan oo open ah inta haddaad fiiriso dadkaa ma jiro inta qofkaa ma jirto inta qofkaa ma jirto 40 adiga ku dhawaad intaasoo kiiloomitir aan hadda ma qiyaasi karo waxaan marti ku nahay deegaanka عارية نوي هل كان قصته محل هذا قالك عارد لقيت آيات كم مغلى جرت ولي ما إمادي حقيقة دول كانوا ودول نعاوله عرفون هوديس آدي وفي عنتها أنا مرنا ما أذاك نحب حدونين ديجان كاني وديجان تدكيسو أي تجعلهن سودبين بدن آدي ماركتي أنا وفرح سنة يا حقيقة أنا هل كان أيام ما أنت مرتكو هاي وحين إيه هاي مالين غالي أو فرحد له إلى مد ما هالمعلمه أن جوجي مقالة مقدشو waxaa farxad gaar ah ii ah halkaani inaan arko anigoo muddo intaasoo san igu dambeysay haba furan oo fresh ah iyo shimbiro yeeraya iyo geedo iyo aqal Soomaaligii maaragtay aan dhigta ka maqli jirnay guriga inuu agteedii maaragtay yaala waxaasoo dhan waxyaabo maaragtay maskaxda soo celinayo oo stresska ka dilaya waay marka boqolkiiba boqol maanta farxadeedii lama soo koobi karo waxaaba ku habooday inaan maaragtay halkaani aan diris ka noqdo asa ahaatee hoolo iyo adduunyo maaragtay isku ka dhex furan darteeda ayaan dib ugu dhigtay marka meeshaani ma ahan meel maaragtay laga xiisa guuhayo ma ahan meel maaragtay laga dhargayo maxaa yeelay waa dhulkii dabiiciga ahay hawadu waa dabiici waa fariis cunada halkaan lagu cuno waa fariis dadka halkaan degan waa dad fariish ah ma ahan dad kaniini iyo qashin ku socda ma ahan waa dad noloshooda dabiici tahay maasha Allah boqolkiiba boqol waxaan leenahay dadka deegaanka halkaani waa mahadsantiin oo ugu horeeyo saaxiibkay oo halkaan aan marti aan ugu ahay nabadoon cali bushkuleeti amba wariyaheeni qaaliga ah ee cali bushkuleeti ee gobolka shabeelaha dhexe xaqiiqatan dhulkaani haddii waa ka faaloona aan dhaho farxad darteeda warka ayaaba kugu dhumaya maxaa yeelay waa dhul dhan walba markaad ka fiiriso waxaad arkaysaa xamar meel yar oo kooban oo haddaad saas u sigatana ma aragtay meelaad ku nasata aan lahayn afarta dhinac cida kaa taagan yihiin adiga dhan ma aragtay aad cabur ku jirto ilmaha xitaa meelay ku dheeldheelaan oo ay ku baashalaan xamar ma lahan meeshaan ilaahan kugu dhaariy bal ilmaha u aragtay wax isku mashquulaya ma jiro dadka waayeelada dadka ma aragtay stress ka dilay kulli waxa u fiican halkaan maxaa yeelay haba fresh oo nadiif ah ay cabayaan halka ma aragtay magaalada muqdisho haddaad bannaanka sar xoogaa bal ku leerso bulaacad urayso iyo wasaq iyo xafaayad iyo dhiiqo iyo qashin ay hortaada yaalaan xitaa guri qurux badan haddaad dhisato xamar waxaa ku dilaa waxay tahay hortaada bulaacad ura halkaan roob hadduu yimaado carafta iyo xayawaanada soo baxaayo iyo geedaha ma aragtay si u fiidayaan iyo nolosha ka dhacaysa meesha xamar haddoo roob yar bir fadho meel la arko waa dhiiqo iyo bulaacad meel la joogsado ma lahan marka waa laba shay oo kala dheer xaqiiqatan aniga meeshaan meel ila mid ah ma jiraan qof walba bili aadana nolosha dabiiciga asagana kama maarmo qofku waxay yiraahdaan markuu ma aragtay stresska ku dhaco gaalada hadaan ma aragtay baadiyaha la geeyo si ma aragtay uu stresska kaga dhinto ma aragtay ugu baabo dadka deegaanka halkaan waa sheegan waxay dhahaan dadka soo wareero stress ku soo dhaco halkaan ma aragtay ku stress baxaan maxaa yeelay noloshaada maskaxdaada caadi u soo noqonayso sad waxaad noqonaysaa qof fariid ah oo meel walba ku fiican ah dadka halkaan jooga hadda hal shay u sheegto nus wax yar ma aragtay aad u sheegto isla markii inta qabto oo wax walba kabiir ku naqaha wax walba waa yaqaanin wixii markaas loo sheego waxaad arkaysaa qof halkaan joogo oo iskuul aanan gelin weligiis alihiisa fartina akrinaya qorayana weligiisna iskuul ma gelin meel iskuulkii xitaa ma arkin ingiriis ka dhaafay meel iskuul xitaa ma arkin fartina waa ka baday qoraalkiina waa yaqaana hal mar bis waxa laga yaabaa inuu meel ka arkin mis mobile ka arkin isla markii hore ka xifdiya maxay yiraahdo wuxuu haystaa
hawadan fareshka oo dabiiciga halka annaga ilmaheen aan ognahay adigu ku shubaayo habeen maan u sheegayo dhagaxaas inaad wax u sheegayso oo qabto waxba aan barahaynin waxaa midaas dheer ilmaha baadiyaha dugsiga ku barta quraanka iyow dheer ee bartaan ay xifdiyaan halka kuwa magaalada muqdisho joogana aysan waxba barahaynin hada macalinka macalinku mar walba asaga waa dadaala waxa ku baraa laakiin qofku inuu wax barta la rabo ilmihiin wax lama bari karo ilmihiin maskaxdoodii waxaa waaye waxay ka dhigtay maraq digaagiisa la caddeey iyo qashin iyo walax maaragtay dhintay ka dhigtay iyo caano boora lagu koriyey asaga dhammaartay waa canug iska maqan canug wada daroogaati waa hadduu jiradana sharoobii kaniini si loogu waday oo maaragtay canug maskaxdiisa ma karta maahan laakiin halka ilmaha meeshaan joogo habadan fariish ku haystaa wax doonto cuno xitaa wuxuu ka qaadaa caafimaad oo ka qaadaa maahayna sida xamar oo kala maan ilaa xamar waxaa jiidaysid waa xabadaha iyo wax la ridaay iyo qaraxyada sunta ka baxay iyo maaragtay bulaacadahaas waxaasaa maaragtay ilmaha ay nafta ka qaadayo marka warkii intaasaan kusoo koobaa fariintaan waxay ku socotaa dadka magaalada muqdisho dadka joogo boqolkiiba boqol nolol aadan ogeyna idinka maqan haddaad baadiyaha moogtihiin baadiyuhu ma dhahaayo keliya baadiyo usoo wada baxo xamarha laga soo dhamaadin dhihi maayo oo qofka maaragtay dad isku xidhan qof keligiis wax ma qabsan kariyo dadka inay isula noolaadaan laakiin ha moogaanina oo maaragtay waqtigiina ku bedela haddii halkan aad imaado oo meel haba leh oo fariis inta fariisato oo maskaxdaada aad dhalaaliso oo go'aamo caafimaad ha qaadato xitaa qof wax soo kordhi kara taa xamar laakiin haddaad xitaa fikir fiican marid maskaxdaada maaragtay wax ka soo bixi maayaan adiga dhan maaragtay qof cabursan oo xanaaq ka soo horeeyo stress hayo oo qashin hayo maaragtay balaayo ku dheefsataa laakiin halkan saas baan intaasna waa kaftan maasha allah noqdo calbush kuleetiyo meeshaan waxa u jeednaa deer wareegsan wareega horta xaloo yaqaan noo sheeg meeshan aqala loo yaalaa marka waa kana hadii alla yiraahdo saas waa aan habeenka aan ku dhaxo haye maalintiina aan isaga waxaysto marka waa hoygii hoy kala ma qabaan haye waa kana meel kala ma waayo baan halkan baan iska joogaa saas waa jiifkayga waa halkan ma garat waa garti ajiib waa marka ma sha Allah anigu ma haan halkan baan ku noolaa saaxiib guru qurux badan waa gurige ya ali waa sheeydi ma sha Allah ما شاء الله علي مال وضع دبيعي وضع كذا كنا ما نجين قدنا متال الواحد اللي يسوق كبيرنا ميال سيد وجدو وحوايا و رب اللي را أقل كان كورك سلو معناها أو أقل صومالي واساس سيدو كلا قريهان قبوقة هو وجدو لسته هو معناها اللي تفيو اللي حريو هذه فرشحن في عن لوجا شقي فرشحن في عن أيا كويالو الباب كيس أو الباب وحاول حوايا مالكاس بقى ولا سوري داي واساس marka kaas walba hadda albaabku waa noo qaadan yahay saas meeshaan dariishad way aqalka laga leeyahay dariishadi waay dariishadi waay oo leerka ahayd waasaas marka halkaan aan ka leersayna xilliga oo macnaha oo kuleylada ay socdaan xilliga qabowgidana waa xiraysaa halkaan albaabka laga soo galaayo waa asagana waa xiraysaa waasaas waa xiraysaa xilliga qabowgida socdaan xilliga qabowgida ay socdaan waa gartay marka nolosha halkaan oo ku nool aqal Soomaaliga qaabkiisa oo dhameystiran waa sidaan ma sha Allah dadka macnaha oo qurba joogta ama dadka diasporada ah magaalada Muqdisho ku nool aad iyo aad u fahamsiiyaysa waa sida nolosha ma sha Allah cajiib kan wax walba xitaa nolosha sideeda kaleeto adiga ayaa ma aragtay kuma taal cajiib waa عجيب ومال عجيبة ماشان ما شاء الله جيلة هل كان كنول وجديد ما ركتي هليب كيس عن مرقدو مرقتي بيها كسور دانسو عجيب هل كاني بين كم جرتو قف والبام بحيوان هاو بالأدنى هاو وأنا ما ركتي الشقة لقبتها هل كجيلة كنول جيل هل كان كنول waa shaqeeyaa cid dhamo maaragtay biyo u soo arooraa marka cajiib dhulkan dhul caadi maahin nolosha nolol cajiiba oo dabiici ah ka jirta xaqiiqatan wax badan ku soo kordhay